bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo daafaha dunida ka joogtaan war wixii dalkii dibadda inaga soo gaaray oo adaan oo kale aad ka daawataan TV-ga SBS xarunta Muqdisho waxaan idin waramaysaa anigoo ah Nimca Cabdisalaan Maxamed qodobadaad warka ku daawan doontaana waxaa ka mid noqon doona marwada koowaad ee dalka Zeynab Cabdi Macalin ayaa magaalada Ankara kulan kula qaadatay wasiirka caafimaadka dalka Turkiga iyo mas'uuliyiinta hay'adda Tika agaasimaha waaxda nadaafada gobolka Banaadir ayaa qalab nadaafadeed ku wareejiyay 3 degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir golaha aqalka sare oo ka doodaya sharciga doorashooyinka dalka iyo qodobo kale ayaad warkayga ku daawan doontaan intuu hawada ku jiro ku soo dhawaada mar kale waxaan markala daawadayaal warkii oo dhan marwada koowaad ee dalka Zeynab Cabdi Macalin ayaa magaalada Ankara kulan kula qaadatay wasiirka caafimaadka iyo mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda Tika warkan waxa inoo sii dheereynaya wariyaheena Cabdishakuur Shaasha marwada koowaad ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo marwo Zeynab Cabdi Macalin ayaa magaalada Ankara ee dalka Turkiga kulan kula qaadatay wasiirka wasaaradda caafimaadka dalkaasi waxaana ay kala hadashay arrimo ay ka mid yihiin dhaawacyo yaala dalka Turkiga oo Soomaali ah kuwaasi oo ku dhaawacmay qaraxyo kala duwan oo ka dhacay gudaha Muqdisho iyo banaanka Afgooye marwo Zeynab Cabdi Macalin ayaa waxay dhinaca kale u rajaysay caafimaad bukaanada Soomaalida ee ku jira isbitaalada Ankara waxaana dhinaca kale ay marwadu kala hadashay wasiirka mashruuc ay ka wada Soomaaliya kaasi oo ah fulinta dhismayaal isbitaallo caafimaad iyo waliba xarumaha hooyooyinka iyo dhallaanka oo marwadu ay doonayso inay ka hirgeliso guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya waxaana kulanka wasiirka markii uu dhamaaday marwada ay sidoo kale kulan la qaadatay mas'uuliyiinta hay'adda Tika oo dalka Turkiga u qaabilsan mashaariicda horumarineed ee arrimaha dibadda dalkaasi waxaana hay'adda Tika ay Soomaaliya ka hirgelisay mashaariic kala duwan oo horumarineed kuwaasi ay ka mid yihiin dhismayaal wadooyin iyo maalgelinta beeraha marwo Zeynab Cabdi Macalin ayaa hay'adda Tika u sheegtay inay doonayso inay hirgeliso ugu horeyn dhismaha 14 xarumood oo ay yeelan doonaan hooyada iyo dhallaanka kuwaasi oo laga fulinayo guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya hadii uu saamaxaha awoodda leh waxaana hay'adda Tika iyo wasiirka caafimaadka bay u sheegtay in mashruucan la dedejiyo si ay uga faa'iideystaan ummadda Soomaaliyeed Cabdishakuur Shaasha SBS Muqdisho agaasimaha waaxda nadaafada gobolka Banaadir ayaa qalab nadaafadeed ku wareejiyay 3 degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir warkan waxa inala socodsiinayay wariyaheena Cabdullaahi Sheekh Doon agaasimaha guud ee bilic soo celinta iyo nadaafada gobolka Banaadir ayaa maanta qalab nadaafadeed ku wareejiyay degmooyinka kala ah Cabdicasiis Xamar Jajaba iyo Yaaqshid kuwaasi oo loogu talagalay in looga shaqeeyo bilic soo celinta magaalada Muqdisho si caasimada ay ula tartanto caasimadaha hormaray gudoomiyaha degmada Yaaqshid Muuse Geese Jimcaale ayaa agaasimaha guud ee bilic soo celinta gobolka Banaadir ugu mahadceliyay qalabka ku wareejiyay waxa uu sheegay in qalabkani ay waxyaabo badan ka bedeli doonto bilicda caasimada suguuni miday xarunta waaxda nadaafada ee gobolka Banaadir halkaas oo degmooyinka qaybo kamid ah lagu wareejiyay qalab nadaafadeed oo la doonayo in kor loogu qaado bilicda iyo nadaafada magaalada Muqdisho oo hore ay uga socdeen ololaha nadaafadeed oo yani mar dhow uu furay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxaanu la wareegnay qalab nadaafad oo aan isleenahay wax badan ayuu ka tari doonaa yani wanaajinta iyo tayeynta nadaafada gobolka Banaadir Sharmaake Cadow Tuuriyare agaasimaha guud ee bilic soo celinta iyo nadaafada gobolka Banaadir ayaa faahfaahiyay qalabkan ay ku wareejiyeen degmooyinka iyo waxyaabaha looga baahan yahay inay degmooyinka ku qabtaan
degmooyinka maanta la wareegaya agabka nadaafadeed waxaan maanta guddoonsiin doonaa agab nadaafadeed isugu jira gaari gacanadii farkeetooyinkii badiiladii dambiilihii degmooyinka looga shaqey lahaa runtii waxaa dalab noo soo gudbisatay 3 degmo oo kala ah Yaaqshiid Xamar Jajab iyo Cabdicasiis oo runtii maanta aan ku wareejinaynaa dalabkii ay soo dalbadeen si loo dardar geliyo oo kor loogu qaado nadaafadda iyo bilicda caasimadda Muqdisho waxaan diyaar u nahay xilli kasta inaan garab istaagno degmooyinka u diyaarka ah inay ka shaqeeyaan nadaafadda dhammaan 17 degmana waxaan faraynaa inay adkeeyaan sidii looga shaqeyn lahaa nadaafadda waad ogtiin 25 bishii January wuxuu noo daafuray duqa magaalada Muqdisho ana gudoomiyaha gobolka Banaadir ololada nadaafadeed oo magaalada caasimadda lagu nadiifinayo guud ahaanba iyo meelaha muhiimka ah maamulka gobolka Banaadir ayaa muddooyinkii dambe waday dadaallo ay ku horumarinayaan bilic soo celinta caasimadda si caasimadda ay la tartamto caasimadaha horumaray Cabdullaahi Maxamed Sheekhdon SBS TV Muqdisho wasiirka arrimaha dastuurka oo furay ololaha wacyigelinta dib u eegista dastuurka warkan waxa inoo sii dheereynaya wariyaheena Aadan Macalin Aadaamo waxaa maanta magaalada Muqdisho ka bilowday ololaha wacyigelinta ee dib u eegista dastuurka kaasoo ay wasaaradda arrimaha dastuurka hogaaminayso ugu horeeyay ee ololaha maanta waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah dhalinyarada iyo saxaafadda isagoona socon doona 3 cisho ee soo socota agaasimaha waaxda wacyigelinta dadweynaha ee wasaaradda arrimaha dastuurka oo shirka ujeedadiisa ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda ay maanta si rasmi ah u bilowday ololaha kaasoo la gaarsiin doono dhammaan gobolada dalka dastuurka halka ay marayso cutubiyada dib loo eegay arrimaha wadaxaajoodka siyaasadeed u baahan kuwa heshiiska laga gaaray iyo kuwa dhiman oo la filayo in la soo gabagabeeyo June 2020 isla markaana la marsiyo habraacyadii ansixinta ee baarlamaanka iyo haddii afti dadweyne loo qaadayo hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah 3 maalin baan joogi doonaa halkan oo aan isku dhaafsan doonaa fikradaha isla markaana aragtidiina aad ku biirin doontaan cutubiyada dib loo eegay inii qaybiyay groups baa jiri doona isla markaana aad ka wada hadli doontaan inta dib u fiirisaan maadaama aad tihiin bulshadii qaybaheedii kala duwaneed inaad aragtaan waxyaabaha ay ka soo shaqeeyeen labada guddi iyo wasaaradda wasiirka arrimaha dastuurka mudane Saalax Axmed Jaamac oo si rasmi ah u furay ololaha ayaa ku booriyay dhalinyarada ka qayb galaysa in ay aad ula socdaan ololaha si ay xogogaal ugu noqdaan dhamaystirka dastuurka waxaa la rabaa in la gaarsiiyo dhammaan bulshooyinka qaybaheeda kala duwan oo siyaabo kala duwan u dareynaya dib u eegista dastuurka dadka naafada ahi waxay rabaan inay ka arkaan xuquuq inay ku leeyihiin dastuurka dhalinyaradu waxay rabtaa inay hubiso inay xuquuqdoodii lagu kaafinayo xagga dastuurka haweenku sidoo kale iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay ka koobantahay annagoo markaa taa ka duulayna wasaarad ahaan waxay nala ahaatay inaanu olole bilowno annagoo kaashanayna guddiyadana olole wacyigelin oo dadweynaha bilowno dadkeenu dee dalkoo dhanku ku dhaqan yahay dabaddana wuu ku dhaqan yahay marka waxaanu rabnaa aalado iyo taba kala duwan inaanu wacyigelinta u socno Aadan Macalin Aadaamo TV-ga SBS Muqdisho guddoonka golaha wakiilada dowlad goboleedyada Galmudug iyo xildhibaanada ayaa ku wargelinaya bari inay u diyaar garoobaan doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa warkan waxayna la socodsiinayay wariyaheena Cabdishakuur Shaasha gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee Galmudug Maxamuud Gacal ayaa isugu yeeray xildhibaanada baarlamaanka Galmudug si maalinta bariya loo gudagalo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo la filayo in bari ay ka dhacdo Dhuusamareeb caasimadda Galmudug waxaana guddoonka baarlamaanku ay isku afgarteen in dhammaan xildhibaanada la isugu yeero si doorashadaasi loo qabto maalinka bariya waa kan Maxamuud Gacal gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo u yeeraya xildhibaanada baarlamaanka bari naga soo qayb galaan intaynu aan u diyaar garowno caawa inta hore loo saxiyo waxaan u malaynayaa kaambeenkii waa la soo dhamaysteen waa salaada liiraa istiqaada ama ducada istiqaada waa taqaaniin marka
mashquul badan ayaa ka jira gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaana laga dareemayaa doorashada madaxtinimo ee Galmudug ee bari dhici doonta inkastoo Dhuusamareeb uu ku sugan yahay Axmed Shaakir oo isna sheegtay inuu yahay madaxweynaha Galmudug ka gadaal doorasho ay qabteen garab isaga taageersan oo kamid ah xildhibaanada ahlu sunna Cabdishakuur Shaasha SBS Muqdisho golaha aqalka sare oo ka doodaya hindi sharciyeedka doorashooyinka dalka warkan waxay noo hayay wariyaheena Shaafici kulankan ayaa waxa uu daaraa hindisaha sharciga doorashooyinka oo ay dhawaan soo meelmariyeen xildhibaanada golaha shacabka ee aqalka hoose hase yeeshee senatarada aqalka sare ayaa maalmahan badood ka lahaa hindisaha sharciga doorashooyinka kaas oo ay soo meelmariyeen xildhibaanada golaha shacabka ee aqalka hoose waxa joogi doona goobta doorashadu ka dhacayso saddexda qof waa kuweeba yiraahdeen gudida doorashadu waxa weeyaan xoog hay maamule ku xigeen iyo xoog hay waxa leeyahay halka sharcigaasna waa uu khaldan yahay doorasho meel goob ay ka dhacayso waxa ah inay joogaan oo sharciyan u ah waa inay joogaan saddexda qof ee ka socda komishanka iyo laba qof ka socda wasaaradda cadaaladda iyo qof ka socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo xisbiyada markaa tartamaya qof kasta wakiil baa u jooga haddii aanu meesha wakiil xisbiga u joogin ma garanayo cid codka u tirin doonto ma adigoo komishanka doorashada qabanaya baan kuu kalsoonaan karaa inaad xisbi tartamayo oo duwala ku jira inaad codka u tiriso halkaasna waxa leeyahay sharcigaasina aad buu qodobkaasina u khaldan yahay waa in lagu soo daraa ciddii meesha mas'uulka ka noqon lahayd ee xisbiyadana matalaysay wasaaradda arrimaha gudahana matalaysay labaad firqadiisa 24aad ood qoranaysaa ma u malayn raggiinan firqadiisa 24aad deegaan doorasho waxaa loola jeedaa deegaan loo asteeyey in laga soo doorto hal kursi baarlamaan baad kusoo qorteen ayaa ku qornaa waxaan dhihi lahaa qodobkaas labaad firqadiisa 24aad deegaan doorasho waxaa loola jeedaa meesha aad tirahdeen hal kursi meesha aad tirahdeen waxaa loo asteeyey deegaan loo asteeyey hal kursi meesha aad tirahdeen waxaan dhihi lahaa anigu hal kursi baarlamaan ama kuraas baarlamaan maxaa yeelay tusaale ahaan hal degmo ama hal goob ayaa waxa ooli karo hal kursi iyo in ka badan dastuurku kuraasta loo tartamayo ee aqalka sare ugu badnaan waa 54 xubnood doorashooyinka iyo qaybinta kuraasta aqalka sare waxaa loo raacayaa sida ku xusan qodobka 72 ee dastuurka sidaas aniga waxaan u fasirtay 18 gobol ee 91 ka hor dalka ka jiray oo gobolka Banaadirna uu koow ka yahay oo min 3 xubnood ka soo baxday 54 xubnood sidaas inay ku noqonayaan waxaana la filayaa in ay meel mariyaan kadib marka ay dhameeyaan wareegga saddexaad ee akhrinta Shaafici Cabdinaasir Maxamed Shaacir SBS Muqdisho warkii oo aad kala socoteen TV-ga SBS xarunta Muqdisho idinla socodsiinaya anigoo ah Nimco Cabdisalaan Maxamed waa intaan warka xiga dib hawada ugu kulmi doono waxaan kaga tagayaa sida iyo amaana Allah